dhammaadka sanadka 2030 sirdoonka macmalka ee AIDA ayaa la abuuri doonaa kaasoo dhaafi doona aadanaha. Tani waxay keeni doontaa horumar cilmiyeed oo aad u degdega, ayuu yiri saadaaliyaha Reis Kurzweil, kaasoo ah CTO-ga Google-ka. Sida laga soo xigtay isaga, marka ay timaado gelinta aaladan dadka, waxaan awood u yeelan doonaa inaan samayno waxyaabo waalni ah runtii. Tusaale ahaan, haddii wax cudur ah laga ogaado, aaladan ayaana siin doontaa digniin waana la tacaali karnaa COVID-19-ka. Marxaladda hore, uma baahnin inaan baranno dugsiyada iyo jaamacadaha sababtoo ah waxaan awood u yeelan doonaa inaan wax ku baranno si degdeg ah. Waxaa mahad iska leh howlgalka degdega ah ee AIDA, taasi oo heli doonta macluumaadka oona gaarsiin doonta maskaxdeena in ka yar ilbiriqsi. wax kasta oo aad ku baran doonta macluumaadka videogan wuxuu ku salaysan yahay saadaalinta Kurzweil. Ninkani waa garaad ku jira qaybta saadaasha cilmiga, gabi ahaan 147 saadaal ayuu sameeyay, 115 ayaana sax ka noqday. Saxnaanta saadaashiisuna waa 86%. marka si waafaqsan Reis Kurzweil, isla markiiba dadku waxay bilaabi doonaan inay yeeshaan aaladan laguna beero madaxyadooda, waxayna leeyihiin fursado aan dhammaad lahayn. Kani waa jidhka cusub ee cyberbody-ga. Shabakadda neerfaha ayaa abuuri doonta xubnaha gaarka ah iyo xubnaha jidhka oo noqon doona kuwa ka roon kuwa dadka. Sidaas ayay cimriga nolosheena u kordhin doontaa, waxayna wax ka bedeli kartaa jidhkeena, wayna u nashqadeyn kartaa si kasta oo aan rabno. xasuusa filimka Matrix-ka. Waxaan ku abuuri karnaa caalamkan oo kale si fudud anagoo ku jiifna sariirta qolkayaga fadhiga. Asxaabteena waxaa laga yaabaa inaan xitaa fursad u helno in la dhexmiro riyooyinka dadka kale sida filimka lagu soo bandhigay. Inta uu jidhkeena ku jiro adduunka dhabta ah, bustad diiran hoostiisa, roobadyada ayaa si joogto ah noogu qaban doonaan shaqada. Bini'aadanimada waxay gaari doontaa 100% heerka dambiga. sababtoo ah tuug kasta wuxuu noqon doonaa mid lagu aqoonsado helitaanka aaladiisa. Booliskuna xitaa ma isticmaali doonaan hub si ay u qabtaan tuuga. Sababtoo ah tani waxaa lagu samayn karaa fogaan ahaan malaayiin kiiloomitir iyadoo la siinaya aaladda amar si ay u dirto koronto galaysa jidhka dambiilaha. Boolisku wuu curyaamin karaa toogasho iyo dhaawac la'aan. Kadib saldhigga ayaana loo taxaabi karaa. horumarka degdega oo sidan oo kale ah qaybta saynska. 5 sano ee ugu horeysay kadib abuurista shabakadda neerfaha, dadku waxay awoodi doonaan inay guumeystaan meerayaasha kale ayna u bedelaan aagag nololeed. ku darso, bini'aadanimadu waxay gaari doontaa dheelitirnaan ku habboon ee qodaynta kheyraadka. Shabakadda neerfaha ayaa xisaabi doonta tirada cuntada, biyaha iyo korontada iyo wax kasta oo kale oo loo baahan yahay qofkiiba. waxaan ku noolaan doonaa barwaaqa tii ugu dambaysay abid. fikradda faqriga ayaa ahaan doonta kaliya xasuus laga soo tegay waagii hore. waxay u eg tahay shuuciyada. markii laga hadlayo siyaasadda, xiriirka caalamiga ayaa noqon doonta mid aad u fududahay. shabakadda neerfaha ayaa keeni doonta madaxyada wadamada ugu badan sharuudaha ku habboon ee wadaxaajoodka. mana jiri doonta khilaaf dambe ee dowlad goboleedyada. haddii wadamada midoobaan, markaas waxaan bilaabi doonnaa inaan ku noolaano hal dal, iyadoo loo eegayo seed guud ee sharci. laakiin dhagax kasta oo lacag ah wuxuu leeyahay daruur madow. dabcan hoos u dhac weyn ayay aaladu u keeni kartaa maskaxda. shirkadaha xayeysiisyada ayaa qarash gareyn doona kheyraadkooda si maskaxdayna ugu dhigay nuglaato ayna u helaan wax soo saarkooda. xayeysiinta ayaa loo habayn doonaa shakhsi kasta wuxuu ku xiran yahay meesha uu joogo kuna noolaadaan dookhooda. markaan noqonno kuwo aad u soo dhaweeya xayeysiisyada, jibku wuxuu soo dayn doonaa dareen gaar ah ee meelaha qaar ee maskaxda wuuna na tusi karaa xayeysiisyada, laakiin taas ma aha dhammaad. tagtaadii sidoo kale waxay noqon doontaa hantida ugu weyn ee seefarka. goormay kugu dambaysa aad bukootay? galmo noocee ah ayaa jeceshahay? sababta u codayso musharaxa gaarka ah iyo xasuusaha foosha xun ee ceebta leh laga soo bilaabo carruurnimadaada dhammaan ma ahaan doonaan kuwa sir ah. nolosha way joojin doontaa inay noqoto mid isku xidhan
sababtoo ah wixii macluumaad ah ayaa lagu qori doonaa serverka. Halkaas oo milkiilaha aaladdu isticmaali kara ama uu heli kara ugu yaraan sirtaada. Sidoo kale waxaa suurtagal ah in aaladdan la jabsan doono. Tuugada teknoolojiyadda ayaa geli doonaan dhammaan macluumaadka ku saabsan qofka. Balkaas oo u horseedi doona khatar aan la rumaysan karin oo afxumo ah. Laakiin dhinacyada kuma dhammaan doonaan sidaan. Shaqada waxay noqon doontaa mudnaanta dadka aqoonta leh in uu meel ka galo ganacsi kasto. Waxaad u baahan doontaa in aad u adkaysato tartan culus, sababtoo ah inta badan shaqada waxaa qaban doona robotka. Boosaska bannaan ayaa soo jiidan doona tiro aad u badan oo dad ah. Ku darso, waxaa aad u fududaan doontaa luminta shaqada, sababtoo ah aaladda nidaamkooda ayaa loo cusboonaysiin doonaa. Fashionka ama update-ka cusub ayaana soo bixi doona si degdeg ah sida iPhone-ada cusub. Si kasta aad u samayso shaqada, faa'iidada ayaa ku sii jiri doonta tartamayaasha qaata fashionka ama update-ka cusub ee aaladda. Haddii ay isku dayaan in ay guuriyaan aadanaha oo dhan, markaas waxaa jiri doona kuwa ka soo horjeesta. Dunida laba bay u kala bixi doontaa, kooxa kuwa taageera in aaladda lagu dhajisto madaxyada iyo kuwa iska caabiya. Ka waran cunsuriyadda, laakiin waxay ku saabsan tahay inaad madaxaada ku dhajisato. Fikradaha chipophobe, chipophile iyo ereyo kale oo qaldan ama saxan ayaa soo bixi doonaan mawduucan. Dhowaan ayuu ku dhawaaqay Elon Musk shirka aaladdan looga hadlayay in ay soo saartay shirkadiisa Neuralink si guul leh ayaana loo geliyay chipka aaladdan maskaxda doonfaarka iyadoo aan waxyeelo loo geysan caafimaadkiisa. Sida laga soo xigtay Elon Musk oo ku dardaarmay inay horumarin doonto caawinta dadka dhibaataysan xanuunada maskaxda ama xanguulada lafdhabarta. Mustaqbalka chipkan waa la wanaajin doonaa awoodiisa, waana la ballaarin doonaa, laakiin hadda ma hayso xitaa kala badh. Howlaha fashionka ama update-ka ugu dambeeyay ee chipku siduu saadaaliyay Reis Kurzweil. Laakiin gudaha Neuralink waxaa jira horumaro kale. Tusaale ahaan, waxa loogu yeero maskaxda lagu beero cyberkinetica. Waa aalad u eg farsamo yaqaan oo ku caawin kara isxakamaynta aadimaha ama jirka kale. Dadka dhibaatada ku qabaan dhaqdhaqaaqa ayaa ugu dambeydii awood u yeelan doonaan inay dhaqdhaqaaqaan si xor ah. Hori haddaan u sii soconno, xitaa shirkadda Nielsen ayaa keentay aalad kicisa maskaxda. Waxay u adeegsataa si ay u ogaato qofka wuxuu ka fikira, alaabta ama xayeysiista. Sidaas awgeed waxaa la baari karaa habdhaqanka macaamilka. Microsoft waxay horay u leedahay aalad teknoolojiyad oo cabbiri karta diyaar u ahaanshaha isticmaaluhu inuu heli karo xayeysiisyada. Mustaqbalka chipka silicoonka cusub oo la hormariyo iyadoo lala kaashanayo golaha cilmi baarista ama NRC of Canada ayaa naga caawin doona fahamka sida unugyada maskaxdu ku shaqeeyaan xaaladaha caadiga ah. Taas oo na siin doonta fahamka sababaha xanuunada maskaxda iyo dhaqdhaqaaqa aadanaha. Qofna ma fahamsana horumarkan waxa uu noo horseedi doono. Weli wax fikrad ah kama hayo haddii aan rabo maskaxdayda inaan ku dhajiyo chipkan waa markii aan noqdo qof waalan. Uma malaynayo. Haddii Elon Musk ahaan lahay qofkii ugu horreeyay ee ku beera madaxiisa, waxay ahaan lahayd xayeysiistan ugu fiican laguna talagalay badeecadiisa. Waxaad u malaynaysaa midaas ku qor faalooyinka hoose ee commentiga. Laakiin intaa ka hor waxaan kuu soo jeedinayaa inaad garato in Elon Musk qabo dadku inay mar hore noqdeen cyborgs ama robot. Iyada oo loo marayo aaladaha moobilada, ficilo badan ayaa noo sameeyay qalab diyaar u ah horumarinta neurochipka iyo nanorobotka nafleyda ama biological nanorobot ayaa ku caawin doona si aad u hesho dhammaan hababka. Uma baahnid kombiyuutar gaar ah, maskaxdaadu waxay noqon doontaa kombiyuutar lafteeda. Skeletonka qabow wuxuu bedeli doonaa baahida loo qabo iibsashada sneakerska cusub sanad walba. Haddii aad u malaynayso in tani ay tahay mid aan cilmi ahayn mise khiyaali,
ku dhufo muuqaalka xiga. 10 daqiiqado ayaa kugu caddaan doonta sida saxda ah ee Elon Musk qorsheynayo in la isku daro maskaxda iyo kombiyuutarka. wax yar kadib waxaan socod ula bixi doonaa lugaha caadiga ah ee duugoobay ee aadanaha. ka fikir fikradda xigta muuqaalka soo socda. mahadsanid daawade.